oday dhaqameedyo iyo waxgarad kale oo ka soo jeeda deegaanka waqooyiga iyo galbeedka magaaladaasi Gabiley ayaa baaq u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wasiirka wasaaradda amuraha gudaha kaasi oo ay kaga dalbanayaan inay faragelin ku sameeyaan cadaalad darro ay ka tabanayaan maamulka isla markaasina ay sheegeen inay u xidhan yihiin laba nin marka sida awgeed taano ka duulaya waxay jirtaa in nimadaasi halka degan oo la xidhay inta soo jeer la xidhay sida horeba looga sheegay nimada ka hadleen waxaan codsanaynaa haddaan nahay duqeyda in meeshaasi cadaalad loo eego cadaalad xumana meesha way ku jirtaa waa cadaalad darro halka taalo waxaan u leenahay madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha barasaab arrinka inay dib uga noqdaan baan ka codsanaynaa sababtoo ah meeshu meel dhis qaadi karaysa ma waa wado ummadda u furan qaadul dariiq baa lagu leeyahay halka laga bixiyo waxa leenahay arrinka hoos loo eego cadaaladna hal la waafajiyo yaan dadka qaflad iyo xoog lagu xidhinayo qarjajac ma aha horta waxaanu ka dacwoonaa saaka cadaaladda waxaanu u sheegaynaa oo madaxweynaha u sheegaynaa oo saddexda gole dawladdu ka kooban tahay u sheegaynaa halka hadii wax laga qaban waayo niman baa barashar la saaray waagi bariyo oo la xidhaa muddo 3 sanadood meel laga xidhan aan la garan oo maxkamaddu tiraa dambi kuma haysto oo garsoorkii baa la kala ilaalinayaa iyo cadaalad iyo dadka dacwoonaya la kala ilaalinayaa markaa waxaan u sheegayaa saaka annagoo codsiga u jeedinay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo waxa la cadaaladu inay dhabaqda ma aha inuu fariin ku xukumo maaha ninka madaxweyne wasiirku warqad loola tago dad barashar ay wataan in loo xukumo maaha qof sito oo koofiyas loo sameeyo arrintaa khilaafka dhulkuna in loo soo diro garsoorka oo garsoorku noogu yimaado sida ugu degdega badan leh waa intuuna khilaaf inta ka sii badan cadaalad baan codsanaa cadaalad cidii cadaaladda ka shaqeyso dhan waxaan ka codsanaa bal in il gaar lagu eegay inamada aan ayron la iska xidhay meel ay ku xidhayeen aan la garanay waxaan madaxweynaha Axmed Maxamuud Silaanyo iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa aan ka codsanaynaa inay ugu yimaadaan dadkan cadaalad kana dhaliyaan cadaalad meesha iyagoo adeegsan kara wasiirka arrimaha gudaha anigu balkan u jeesanayo dawladdu ha soo sameeyso anu salaan ku fuul baa leeyahay halka bartanka way wali aniga waxa sababta waxa weeyaan laba nin loo iyaga waa jeesto bila xisaab lagu xidhay dawlad laga qaaday dawladda horgeynay dawladdu ogay dawladdu haga jawaabtaan u leenahay yaa uqooda lagu hayo laba bilood bay xidhan yihiin dawladdu ma oga dawladdu waxa ay badali weydo waa Cabdi Abdullaahi Daahir Somali Channel TV Gabiley